ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال. بسم الله الرحمن الرحيم. kulanti wacan oo wanaagsan gebigiinba khiyaarta qiimiga iyo qadarinta mudaneena daawanayo meel kastoo aad joogtaan. waxaan idinkala soo hadlayaa xarunta Convention Centerka oo ay Soomaalidu shirarka ku qabsato iyo barnaamijyada ay ku qalin jabinayaan hadba meelaha waxbarasho ay bulshadu leedahay. toddobaadkan barnaamij gaar oo ku saabsan dugsiga Axmed bin Xambal oo arday wax ku barataahay ay ka qalin jabiyeen dhinacyo kala gedisan oo aqoontooda diiniga ah ayaan jeclahay inaan barnaamijka gabi ahaanba idinku soo qaado inagoo dhinacyo fara badan ku taaban doona isla markaasina waraysiyo aanu idinka qaadnay da'yarta wax ku barata macallimiinta waalidiinta iyo weliba culimaadiinka Soomaaliyeed ee madasha kulankani khudbadaha ku lahaa qaar ka mid ah inaanu waraysiyo idinka soo qaadno. barnaamijkaas oo xiiso gaar leh ayaanu barnaamijka Somali TV ku eegaynaa. hase ahaatee inta aanan qaybaha kala gudagelin aan bal ugu horeynba soo qaato waraysigan aan la yeelanayo mid ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed ee kulankan ka soo qayb gashay isla markaasina khudbadaha ka jeedinayay. sheekha aan jeclahay inaan waraysiga ka qaado ayaa waxaa la yiraahdaa Sheekh Tawakkal Yuusuf. waxa uu degan yahay magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. dhinacayga ayuu taagan isaga aan jeclahay barnaamijka Somali TV inaan ku soo dhaweeyo Sheekh Tawakkal. marka hore Minnesota ku soo dhawaaw iyo barnaamijka Somali TV. ما شاء الله ومahadsantiin soo dhaweyntaadi soo dhaweyseen Somali TV iyo xafladan walaalaha igu casuumay dhamaan waa mahadsantiin. waa gartay sheekh waxaad ka mid ahayd dabcan culimaadiinka Soomaaliyeed ee maanta xafladan qalin jabinta ardadu farta iyo quraanka iyo barnaamijkiisa marka lagu soo gabagabeynayay marka dareenkaagu sidii uu ahaa mar hadaad Boston ka timid Minnesota aad timid arday Soomaaliyeed oo qalin jabinaysa inaad kulankoodaasi aad khudbad ka yeelato. run ahaantii magaalada Minnesota waa magaalada ay dadka Soomaalidu aad ugu badan yihiin maadaama aan Boston ka imid oo populationkeedu aad iskaga yar yahay. marka aad baan ugu farxayaa inaan ka soo qayb galo Soomaali aad u tiro badan dhalinyaro Soomaaliyeed community-ga iyo isku xirnaantiisa khaasatan wali waxaan aad ugu farxayaa quraanka kaliya inaysan ahayn waxyaabo badan oo ka mid ah waxyaabaha maadiga sida xisaabaadka iyo in lagu tartamayo ardada waxay meesha ku baranaysaa inay ka mid tahay. marka aad baan ugu faraxsanahay. ka sheekh ahaan dabcan dadkeenan waaweyn Soomaaliyan wax ku soo baranay haddana caruur baan wadankan la joognaa aanu doonayno dhaqanka iyo diinta iyo Soomaalinimadii intaba inay bartaan. barnaamijka noocaan oo kale ah ee farta caruurta lagu barayo asaasiga hoose muhiimad intee la eg buu u leeyahay baad isleedahay mustaqbalkooda waxbarashada diiniga ee wadankan. bismillaah run ahaantii marka aan meelo badan fiiriyay waxbaridda ardada wax la barayo waxa ugu asaasisan waxa weeye in ardada la baro farbarashada. maxaa yeelay waxay ka caawinaysaa ardayga inuu hadhow quraanka hingaadsan karo. maxaa yeelay dhaqankii hore Soomaalida loox baa wax lagu qaadan jiray ardaygu wax ku baran jiray hadda buug iyo qalin bay isu bedeshay. sidaa daraadeed ilmuhu waxa dhacaysa ilmo dhowr juz xifdisan oo iPod ka dhageysanaya laakiin markay hingaadu noqoto ay ku adkaanayso. laakiin alxamdulillah waxaan dugsigan iyo macallimiintiisa hadda ku arkay arday xoogga ay saareen juhdigoodu ay ku bixiyeen in ay farbarashada bartaan si wanaagsan ay u barteen marka aan fiiriyo oo indheeyay. aad iyo aad marka kam sheekh ahaan dabcan wadankan caruurta waxbarashadeedu ma sahlana. waalidiinta iyo macallimiinta iyo dhammaan community-ga dadkaba si midaysan haddaan wax loogu qaban waxa la tilmaamay marar badan inay sahlanaan karto inay caruurtu ay si sahlan ay jidka kaga leexdaan. maxaad isleedahay marka jidka ugu wanaagsan ee caruurta Soomaaliyeed ee wadankan Mareykanka joogto wax lagu bari karo dhaqankii diintii lagu hayn karo iyagoo dad wanaagsan oo labada dhanba dhinacii Mareykanka iyo tii Soomaalinimadaba noqonaya dad wax soo saar leh. horta dariiqa koowaad haday dad Soomaali meel isugu yimaadaan ay joogaan waxa ummadda ka dhaxeeya ay ku midoobi karaan horta waa midnimada
oo macallimiinta culummada macallimiinta kale ee maadiga wax ka dhiga maadaama ay tahay waxa laga shaqaynayo in ilmihii iyo ubadkii waddanka yimid wax la baro mid ugu horreysa wax laga shaqaynayo horta waa midnimada weeye oo taasi mujtamac wuxuu ku horumaray ka mid tahay tan labaadna waxa weeye in xagga waxbarashada competition iyo tartan loo galo waxay faa'iido u tahay mujtamacay u tahay aysan noqon keliya dugsiyo khaas ah inay macnaha ilmuhu iskaga xirnaadaan in xagga khayriga iyo maadiga iyo lagu tartamo macallinkana lagu qiimeeyo waxqabadku ilmaha wax u qabanayo taasaan filayaa inay tahay waxyaabaha ilmuhu ay u noqonayso inay dhaqankooda iyo akhlaaqdooda ay ku hagaagaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى wagdaawadayaal weli barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa axmed siciid oo ka mida waalidiinta soomaaliyeed ee carruurtoodu ay wax ka bartaan dugsigan axmed bin xambal ayaa dhinaca iga taagan axmed ku soo dhowow barnaamijka Somali TV ee maanta waa maasantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh iiga waran marka dugsigan carruur baa ku dhigata dabcan meeqa cunug ayaa dugsiga ku aada saddex ay aada walaal saddex marka saddexdaada cunug ma kuwa qalin jabinay maanta ku jireen ma hore u qalin jabiyeen haddaad si kooban iiga waranto wiil hore u qalin jabiyey cabdullaahi baa la dhahaa gabarna hadday ku jirtaa oo shamsaa la dhahaa marka wiilkaagii hore qalin jabiyey ma qur-aanku dhameeyuu ka qalin jabiyey mase qaybtan farbarashada ee farta la baranayuu ka qalin jabiyey marka wuxuu ka qalin jabiyey farbarashada haddana qur-aanku ku jiraa ilaa jisa tabaarag buu marayaa insha allah waa gartay aabbaad tahay soomaaliyeed carruurtaadii dugsigan bay dhigtaan way qalin jabinayaan dabcan Soomaaliya markii aan maqalno qalin jabin waxaan u naqaanay hal mid oo quraankii cunug inuu hal mar dhameeyay laakiin dabcan in carruurta wax walba oo markaas ay ka gudbaanba looga abaal mariyo wax wanaagsan farta marka ciyaalku ay baranayaan maxaad isleedahay markii ilmahaagu hadda ay iskuulka dugsigan aad dhigatay siday u baranayaan maxaad ka dareentay markay farta barteen iyo markii aanay farbarashada aqoonin ka hor والله ولا الشيء كست بلو بقول هي كان قرآن قلنا شبيه وإنه هرتا فربرشة برتا أصلا فربرشة برا ما قلنا شبين كرام مركا واحد كست واحد كهرس فرتا مال في عم بين كمريان قلنا شبين تفرتي وقعد بقول فرح سنة هنا فربرشة كقلنا شبيه تاسع قرآن كأفضل إني برتان وهذا قرآن كي كلنا قلنا شبيان وكتب الجامعة marka wax kasta biloway leeyahay marka bilowgii waa ka gudubnay naga stage baa u gudbinaa insha Allah oo barashada quraanka qalin waxaad iga warantaa marka waa sidee xiriirka macallimiinta waalidka iyo carruurta ka dhaxeeya oo markaasi ka waalid ahaan aad isleediin ama carruurtii horumar bay ku gaarayaan waa sidee xiriirkiina macallimiin ahaan iyo ka waalid ahaan wallahi xiriirkaygu aad buu fiican yahay waa ujeedaa hadda meesha joogno waa ku faraxsanahay ciyaalkii baa keenay marka aad buu xiriirkaygu u fiican yahay macallimiinta Ilaahay khayrsi waa ku faraxsanahay aad baynu la dadaalanaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء